السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدا يا أصحابي ميل بودكاستين دنيا دعلده waxaan inaad caafimaad qabtaan qofka subax u tahay subax wanaagsan qofkay farqin iyo habeen iyo waxa soo tahayna waqti wanaagsan waxa meesha nagala socotaa Nuuruddin Wadani waxa inoo socotay qisadii maxaa la dhahaa ninkii wiilkii la sheekaystay ama shukaansan hayay gabadhii dhimatay oo baartigeedii koobaad dabcan aan soo gelinay maantana insha Allah taala qaybteedii kale inaan isla wadaagno ayaa soo qorsheeyay iyadoo qisadii waxa soo keen dambeysay ay marayso ninkii wiilkii iyo ninkii maxaa la dhahaa qabri ilaaliyaha ahaa oo la isla qabtay oo la yiri wiilkii maxaa la dhahaa sheeg cadayn keen kadibna uu keenay waxyaabaha ay gabadha ku xidhiidhayeen iyo inay saacadahan qabriga gudaha dhexdiisa ay soo gashay ninkii qabri ilaaliyahana uu diiday oo yiri waxaas dhan aniga ma ana arkin kadibna la wacay aabaheed kadib markuu aabaheed afka la soo kala qaaday mucjizatii ugu weyneed oo uu yiri gabadhayda 2 sano ka hor ayayba dhimatay ninkii haddadan gabadha shukaansan hayay ee la socday ee la baxsan rabay ay qiso aan inaba caadiin afka ku soo kala qaaday mucjizo aan caadi ahayn kadib odaygii ayaa imaaday qabriga ayuu imaaday wiilkii maxaa la dhahaa booliskii waashmaankii dhammaan qabriga ayaa qoditaan lagu bilaabay kadib markii maxaa la dhahaa gabadhii qabriga halkii ilka la dhigi jiray ama luxudkii loo dhacay ayaa waxa la helay gabadhii oo maxaa la dhahaa labisan oo qurux badan oo nooceeda aad moodid saacada xitaa inaysan aasanayn hadda meesha la seexiyay kadib waxa dhacday wiilkii xitaa dharkii uu ku tilmaamay ee ay qabtay maxaa la dhahaa dharkii ay qabtay nooc kasta wax kasta ay qabtay oo sheegay wixii oo dhanna waa ay qabtaa kadib qabrigii baa gabadhii laga soo saaray waa la soo qaaday dhakhtar ayaa la geeyay wiilkii horta kolkuu saa u arkay odaygii waa miyir daboolmay oo waa sooxay kadib waxa la dhahay wiilkii ayaa maxaa la dhahaa gabadhii intuu eelkii luxudkii isugu tuuray ayaa dadkii oo korta taagan kalgacayl dartiiyuu laabta geliyay isagoo oo gacaliso qalbi maxaad iga tagtay maxay leh kadib adii labadoodii wareer kugu daalin waa la soo qaaday dhakhtarkii ayaa la geeyay kadibna dhakhtarkii ayaa lagu dhakhtariyay dhowr maalmood ayay halkaas waxa la sheegay inay ku jirtay la yidhina cid kale oo ma gali karto wiilka gabadha waalidkeeda mooyee wiilkii xitaa laga mamnuucay kadib wiilkii maskax ayuu sameeyay oo shil ayuu isa soo galiyay sida la sheegay kadibna maxaa la dhahaa dhakhtarka ayuu soo galiyay ambalaastii iyo maxaa la dhahaa kuwii BS-ka ama nursing-ka maxaa la dhahaa kalkaaliyaasha ayuu la heshiiyay oo ku yiri si xun ayaan xanuunsanayaa dhakhtarka codsiga iga geeyo oo waxa dhahdaan caawa inuu halkan joogo oo baryo ayaan rabaa buu yiri maxaa la dhahaa bukaanku kadib qorshihii ayaa u suurta galay dabcan wiilkii kadib wiilka ayaa si degdeg ah u talaabo qaaday oo higsaday ama beegsaday meel kasta oo uu gabadhii gacalisadiisa ahayd uu ku haleeli kara ama uu ku heli karo kadib waxa la dhahay si degdeg ah ayuu maxaa la dhahaa meel ugu helay nasiib wanaag gabadhii kadibna wuxuu ku dhahay sababta aad sidaan igu gashay maxay tahay maxaan la leeyahay way dhimatay way noosha maxay waa maxan kadib gabadhii ayaa qisadeedii dhabta ahayd afka ugu kala qaaday waxa ay tiri maalin maalmaha kamid ah ayaa waan xanuunsaday si xad dhaaf ayaan u xanuunsaday cunto bicabitaan iyo dhammaan oonta aadamuhu oo jidintaba waa aan ka go'ay kadib hooyaday iyo aabahay ayaa waxay u maleeyeen sheeka been ay iska dhaadhiciyeen oo inaan uur leeyahay aha oo aan xumaan soo sameystay kadib markii ay maxaa la dhahaa aabahay uu qiirooday ciil uu igu diray maxaa la dhahaa walaalahay ayaa budh ii qaatay kadibna sida maxaa la dhahaa xayawaanka ay ii garaaceen ama ii dileen kadib awoodii dhanayd ayaa iga tagtay waa hooyaday waxaan dareemayaa aabahay wuxuu lahaa sharafta waalidka ahalkayga soo celiya way ceebaysay sharaftayda ayaa ku ciyaartay halka maxaa la dhahaa hooyadayna ay ilmadu labada qoban haysa ay lahayd gabadhayda hadilina kadib waxa dhacday gabadhii in ay maxaa la dhahaa ay miir beeshay oo miir daboolantay hadalkii ugu dambeeyay ee aan sii xusuusto waxay tiri hooyaday iyo aabahay kulkay afka ii soo dhaweeyaan ama dhegta ii soo dhaweeyaan inay hooyaday lahayd ayaan maqlayay maxaa la dhahaa gabadhayda hadilina halka maxaa la dhahaa walaalahayna ay si xad dhaaf ii garaacayeen kadib anigana aan lahaa aaba ma samaynin kadib waxa la sameeyay dhakhtarkii ayaa maxaa la dhahay inaan dhintay ayaa la ii maleeyay kadibna si degdeg ah ayaa maxaa la dhahaa qabriga la igu soo qaaday kadibna waa la ii aasay waana la iga dul dareeray waxoogaa saacado kadib ayaan soo miirsaday oo soo baraarugay kadibna waxaan arkay aniga oo kafan ku jira qabri madowna dhax alla cid bini aadam ahana aysan ila joogin kadib waan dhawaaqay waan qayliyay waan wax halbaan sameeyay laakiin qof ciida darbiyada ciida ama ciida culus hoosta ka maray waxa weeye qofna codkiisa inuusan maqlaynin adigu waa dareemi kartaa kadib
waxaa dhacday waxay tiri nafi orod ayay kugu aamintaa ayaan micinsaday oo dhinaca midigta qabriga ayaan qoditaan ku bilaabay dhinaca midigta ayaana ka qoday nasiib wanaag wax qabriga xaggaas igama ahayn sida ay qisadu u qoran tahay ee gabadhu ay ku warantay kadibna sidaan u qoday anoo laf iyo luunba beelay ayaa aan ka soo baxay qabrigii kadibna ciidamayna arkin meesha ayaan ciigi iyo dhagaxyaan saarsaaray kadibna waan soo cararay aniga oo kafankii ku duuban ayaan soo baxay oo aan xaafadihii magaalada u sokeeyay ayaan dad weydiistay oon ku iri caawimaad isiiya qof sidan oo dhibaataysan ayaan ahay caawiya kadib maxaa kugu dhacay ayay igu dhaheen kadibna waxaan idhi dad tuuga ayaa qabatay kadibna dharkiiba iga saarteen wax walba watayna way iga qaadeen dhar isiiya waxaan cunana isiiya kadib waa loo garaabay maadaama ay dakharro fara badan wejigeeda iyo dhaawacyo fara badan ay wejigeeda iyo jirkeedaba ay ka muuqdeen kadibna waxaa la sheegay in ay maxaa la dhahaa ay caawiyeen ay cunto siiyeen ay dhaqaaleeyeen kadibna waxa ay tiri habeen kasta qabriga ayaan soo seexan jiray maalinkiina meelahayga ayaan waxaan shaqo awooda aan soo shaqaysan jiray kadibna halkaas ayaynu labadeenu isku baranay kadib wiilka ayaa go'aansaday inay emergency go'aan ay qaataan ama go'aan degdeg qaataan kadibna wuxuu ku dhahay aynu isla baxsanno degmadaydiina aynu aadno waayo ayay tiri halkii ayaa iskala soo baxsaday kadibna degmadii wiilkii ama degaankii wiilka ayaa la imaaday halkii dhakhtar ayaa la geeyay oo gabadhii lagu dhakhtariyay halkii ayayna labadoodaba isku guursadeen qisadan oo la sheegay in ay dadkaas ay Pakistan ahaayeen ayaa ah qiso runtii aad u xanuun badan oo caalamka dhan ka oohisay kuma dhaaran kara kulay inay dhab tahay laakiin run ahaantii waxyaabo inta badan dhici kara dadkuna intaan la eg in adduunka lagaga boog walba lagu qoro inta badan haddii ay been tahay waxaan u malayn in aysan cadeen haddaba qisadeenu intaas ayaa ku eg tahay intaa qisooyin kale oo fara badan oo muhiim iyagana wadaagi doono salaamu alaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu